annaga xeerkani wuxuu nooga digan yahay dabar iyo hatartamina fayeenka ururka Hilaac Maxamed Cumar Jibriil Mooj oo warbaahinta kula hadlay xarunta aqalka baarlamaanka Soomaaliland ayaa ka dareen celiyay xeerarkii ansixiyeen golaha guurtida Soomaaliland ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda Soomaaliland wuxuuna sheegay inaanay xeerarkani ogoleen urur siyaasadeedka Hilaac isla markaana ay shir isugu iman doonaan iyagoona baaq u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ugu baaqay inaanu ka qayb qaadan duminta Soomaaliland waa sida hadalka u dhigay horta qodobka hadda walaalo waanu diidanayn meel aanu ku aqbalayna ma jirto ولينا سيدي بانو نهاي وانو ديدنهاي لكن ما أنت واحد موقتي واحد دوان وحي أنو فلني كله جورتدو كلها جورتدو أول أنو بدنا ينو يهي كلا ده حاضر أو مقارنة سوا حيابها لا عيا أمر عدوين كسياسي كاس نعيب بدن كي كرام معقولة ما أنت يسوق روح راعي ومري طريقي أي هرم مري كلها وكيلادو أو مصالح دي دنا هي كوكوان هيد بي أيوه جالسين كلي أنا جو ما أنت واحد أركينا صور كي اللي حلاتن كي تشون كسر قلب قولي إحنا كي داعي إلا يا جراد marka anagu waxaanu maanta leenahay laa yaa guurtiyey ka daaya war dalkani kuma qumanaanayo oo kuma qurux badnaanayo kuma qiimo badnaanayo in sidaa aynu wax wadno lagu sii wado war ma qurux bay nala tahay oo ay nala noqoto in muddo 20 sano ah ay Somaliland u dabranaato beel qura oo ay siyaasadeedu u dabranaato asxaabteedu qaranku u dabranaadaan balimiga suuradayna hor taaleega horta intaynaan ururba soo gaadhay xisbiyadiina hor jooga waa saddex xisbi oo saddex gudoomiye oo qoys kaliya ka soo wada jeeday maxaan kala ay gudoomiyeel ka yihiin gudoomiye xigaan gudnadooduna ay yihiin xoogagayaashooda guudna ay yihiin musharaxiintooduna ay yihiin ilaahay baa idinku dhaariyay taasi mayna wada saxdeen reer Somaliland nahay war Somaliland waxay ka kooban tahay waxay lahayd baallo ay ku duusho marka dhexda laga yimaado baalihii baal baa rifmay kii kalena inuu rifmaabay in yuru sii jirna hadda marka hadii Somaliland baalihii ku rifmaan saynu u dooli karnaa saynu u dooran karnaa u sheegan karnaa dimuqraadiyadeenu awal ku faani jirnay saynu u raadsan karnaa ixtiraafku cid duula saa doonato raadsata laakiin maanta baalihii bayna rifmay haw say suuragal u tahay inagoo raali gelina cid gaar ah ama ashqaas gaar ama beelo gaar ah inaynu dimuqraadiyadeena ka tanaasulo Somalilandnimadina ka fudaydsanno kulli annagana lama qumana ilaa haddana halkaygii baanu taaganay wax iska kaayay bedeleen haba yaraatee ma jireen qaranka cid u tanaasulay horta runtii markaynu sheegno waxa weeyaan cidda aan u tanaasulay waxa weeyaan cidda xataa 20 maanta iskuma hayno qaranka in loo tanaasulo doorasho madaxtooyo la iskuma hayo doorasho isa saara la iskuma hayo aan dhadhamino mawduuca la isku hayo waa 20% urur kasta waa u dan ku ka ololeeyay iyo ku ololeeyay sababtan waa idin sheegaya doorashada dhici doonta ee isa saarka loo bixiyay hadayba ay noo qabsanto ilaahay nagu simo xisbiga tartamaya ee madaxweyne musharaxa haysta ee wata iyo ururka keligii cararaya xisbinimo cararaya isku muhiimad iyo isku qiimo noqon yeelan maayaan suuragal ma aha anigoo xisbi hebel musharaxiisu u codeeyo madaxweyne dooran kara inaan priority siiyo urur u cararaya maxaan ku dhahdaa xisbinimo kaliyaata oo reeri madaxtinimadii baan haystay xisbinimo waxay tiraysaa iska kooban suuragal ma aha inay cod helaan ururo hadii doorashada sidaa lagu galo sababtuna waxa weeyaan muhiimadda waxa la siin doonaa doorashada madaxweynaha iyo ururku xisbigu wato ama ururku wato ayuu baana guuleysanaya wallahi doorashada galitaankeeda hadda xaqiiqatan sida ay tahay ku galimayno talana waanu ka yeelanaa wali waxaan ku diidanahay waxa la wax noogu jiro maslaxado Somaliland xataa ugu jiro annaga noo muuqda ma jiraan ilaa iyo Israa'iil gelin kooban oo beelaha Somaliland dhexdooda qayb kamid ah uun mooyaane taxeerkii wali ma wadaan sixino maadaama madaxweynihii wali aan horgeyn madaxweynaha maadaama la horgeeyay qalinka ku dugan xeerkaas wali aan sax maaha in la soo celiyana way u badan tahay wali waa suuragal madaxweynahan ismalihin saas uu isna ku qaadan doona duuduubka aan cidina dani ugu jirin laakiin hadii ay sidaa ku dhacdo marka ka xisbi urur Hilaac ahaan anaga waxa noo taala tala gaara iyo inaanu dib isugu noqono mowqifkeenu ka qaadan lahayn arrimahan say u socdaan horta silsiladda professorka waxa ka horeysa inaanu anagu kulanno oo arrimahan miiska soo saarno oo ka doodno
kolley professor Samatar ma ahanin sida qolyihiin go'aan banaanka ka qaata ee waa nin fahansan dimuqraadiyaddii micnaheega tala aanan anagu la ogolayn ama aanan miiska soo wada saarin oo wada rogin oo la isla qaadan oo la isla gorfayn kaligii banaanka ma qaadan karo laakiin wuxuu xaq u leeyahay waxa qolada kalaba xaq u yeelatay hadduu taraasulayo iyo hadduu magaranaysa iscasilayo iyo haddii ururka halka lagu joojinayo shaqadii aanu soo wadnay intaba taladayada waan isku dib baan isku laaban horta cid fariir noo diroon adduunka marka hore ugu jecleen waxay golaha guurtida oo ka filanay niman odayaala niman reer Soomaaliland oo dhan oo lagu dheeli tiray waliba golayaasha kale waxa la moodaa inay dheeli tirnaansho aan dheeli tirnayn laakiin golaha guurtida waa golo dheeli tiran oo ku astaysan aasaaskii Soomaaliland ilaa inta aan doorasho galin isaga laftiisu dawaansho waa ku raagay maanta cidii aan fariin u dir lahayn iyaga laakiin fariintaas way dhamaatay oo fariinta mool isku diriyaa ma jirto madaxweynaha hadii uu talada isaguna la qaato isaga laftiisa door ka qaadanaya marka kala dirkii Soomaaliland xaqiiqatan kaligiiba maanta qalinka inoo haya wada joogii Soomaaliland wakiilada waxaan dhaawaa ma jirto qoladaas waa qolada godka ka soo saartay baasha quruxdii iyo dawladnimadii iyo dimuqraadiyaddii iyo wada lahaanshihiisa Soomaaliland hortaniyo wararkaasi sidaad suuq uga maqashaan baan anaguna uga maqalaa laakiin xaqiiqo jirta maaha waa gudoomiye urur siyaasadeed waa nin doonaya inuu hal abuur cusub oo qurux badan oo aqoonaysan ku soo kordhiyo maxaan ku dhahaa saaxadda siyaasadda Soomaaliland oo inuu kaga bogsano oo kaga dawowno cudurkan inuu sii faafay ee dilaaga ah qabyaaladda marka isagii haddana inuu mar kale dabada soo qabsado kulmiye oo awalba la jaan qaadi kari waayay kulli anagu meel kuma ogi horta walaalay halka koota ma taalo xaqiiqda markay uu soo noqono wax koota la yiraahdo sheegaya haba yaraatee ma jirto boqolkiiba haldheeri aynu ku tartanno ninka haldheeri kaaga badiday koota looma xidhin haddii 100 qof ku codayaan isagana 99 codayaan isaga dhacaya waa doorashada furan oo aan la iskugu soo gabanin gobollo maran iyo degmooyin maran iyo tuulooyin maran oo aan dad badan ku noolayn in loo lugu dabro ama loo xidho magaalooyinka camiran maaha tusaale gobolka Sool wuu inaga tagay cod baa laga sugayaa codka gobolka Sool urur ka helo ama xisbi ka helo oo hadaan inala joogin maanta degmadii Caynabi nagala joogto in loo dabro gobolka Murudsheekh maaha 20 hadaan Murudsheekh ka keeno hadaan 20 Murudsheekh ka keeno Sool 20 ka keeno wax isu dhigmadee maaha meel 10 qof ka codeeyay meel 100 qof ka codeeyo kala weeyaan marka anagu taan rabnaa wax weyn doorashada furan oo hal dheeriya koota wax la yiraahdo meesha ma taalo anaga xeerkani wuxuu nooga digan yahay dabar iyo hatartamina warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmiil soo gasho Fiber Optic-ka Samtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban gelinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba internetka Samtel adeegsadaaba ammaan Samtel adeega sahan waxa uu kuu fududeynayaa ogaanshaha fursadaha shaqo ee ka bannaan dalka adigoo kala socon kara lambarka goliska haddaba macmiil maantaba iska diiwaangeli adeega sahan garaac *183 fargees kadib dooro lambar 1 oo ah fura adeega hambalyo macmiil waad ku guuleysatay furashada adeega sahan maasha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom macmiil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay Fiber Optic-ga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarle ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba macmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121